السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعليال وسلامته ميل كستا جوجتا وولاشين مري مريدين مركله مقال عسب حيد الله يكسو دواده شنال كينواي قلبي فرن نية سافية قعم فرن سبسكرايب كدعدع نوغسية لايك جريه شير جريه الذين لا شير جريه كومنت قرح بدن نوغسو قرا هذا كل عسب تاي channel ka سبسكرايب نوصار جنبال القناة سدا ونقطة دعوة وهري وحياة سوق لي هري كأركتي الذين هذا لا شير جريه كومنت قرح بدن نوغسو قرا جرتوا والسكير جبسية هيانتن خوو اسكجرا إلى جرد انتهاء ستنا لها عافيمات سيو أنا جنا لها عافيمات نسيو ولا ليه خليقة وحد عدي وقصة كرايم ونين كل جد لي ودن كمريكنكا ولجوبي جوريجا نمركي لدلي ولجوبي جوريجا جيرانك يا وعين وحي وعين قبته أو أسكرته دبدمسكا أي وعين مركي وعين وأنسكو إما عادي جوريجي على صوغ لي جوريجي هدي لصوغ لي كو حلو ملينا إني guriga uu gubtay markii guriga la galay oo la dadamiyay nimankii dabdamiska ahaay waxay arkeen yaani inuu guriga dhan oo alaabti dhan meelaha dhan ay ka soo baxsan tahay oo armaajooyinkii dharkii oo asidan la isku labqasay oo la isku gadgadiyay ayay arkeen markaas waxay arkeen hadana laba oo meed ah ayay arkeen nin inaagtiisa oo guriga degnaay oo lagu gubay markay arkeen waxaan nimankii dambi baarista ahaa la wacay nimankii markii la wacay ee imaadeen dambi baaristii iyo nimankii meedkii la qaaday meedkii la baaray gurigii marka waxa la ogaaday intaan la gubin in guriga dhan oo la baartay hadii meesha laga fiiriyay wax lacag ah wax dahab ah yaala malaha marka dadka marka askartii dabdamiskii askartii kala imaadeen dambi baarista meedkii ay qaadeen waxay xaqiijiyeen inuu gurigan guri oo dad in lagu dilay uu yahay jiraankii la weydiiyay oo la dhahay hay gurigan ayaa degnaay markaas ay dhaheen waxa degnaay nin inaak isqabaan oo da'weyn ah oo George iyo Lucy la dhahayo ayaa degnaayeen ay dhaheen marka Semberin waxa uu adeegi jiray waa dad waaweyn waxa uu adeegi jiray nin oo jiraankooda ah oo markasta saacido ayaa uu adeegi jiray markii la raadiyay ninkii ma jooga asigana ninkaasna baawur ma qaadan jirin waa jiraankooda wuxuu qaadan jiray biskuleetigii hadii la arkay gurigiisa la tagay biskuleetigii nin cooyaala askartii way baxeen gurigii dhan wixii laga toosin karay ka toosiyeen way baxeen markay soo ogaadeen meedkii la baaray wixii dhan la baaray ay waxay ogaadeen in meedka intiisan guriga la gubin in dadkan la dilay ninka waxa loogu dhuftay George inta waxa loogu dhuftay madaxa bud loogu dhuftay budkaas uu ku dhintay maamadana Lucy waxay ku dhimatay iyadana afka ee good in laga geliyay shariid afka loogu xiray shariidkaas ay ku dhimatay maamada qofkaas wixii gurigaas ka qaadan kara waa ka qaatay baaritaan guriga loo soo noqday xaafadii markii jiraankii dadkii dhan la weydiiyay markaas waxa la dhahay dadkan ninkaas oo u adeegi jiray ninka Charles allaha asoo adeegi jiray ninkii hadii la raadiyay waa la waayay biskuleetigiisana guriga banaankiisa oo yaala markaas jiraankii markii la weydiiyay waxay dhaheen George iyo Lucy waxay ahaa jireen dadka bangiga ka cabsado oo lacagtooda guriga keensado marka qisada ila fiiriyay qiso oo wax ku jira waaye ina fikrad ka qaadatid la rabo marka dadka waxay ahaa jireen dadka bangiga ka cabsado oo lacagtooda bangiga inay geliyaan diidaan lacagta marbakis ee soo qaadanayeen dad guriga lahaayeen oo ahaa bangiga lacageedooda loogu soo shubay dawladda lacag siinayso ee ahaayeen bas markaas waxay ahaa jireen marba way soo bixin jireen gurigii ku dhaafan jireen gurigii markii la fiiriyay gurigii lacag ma taalo wax taalo ma laha marka gurigii amar waxa loo soo qaatay gurigii jiraanka oo Charlie ahaay in gurigiisa la jibiyo guriga markii la jibiyay amar askarti soo qaateen mar inuu guriga la jibiyo waa la imaaday gurigii la jibiyay guriga markii la jibiyay waxa la helay gasacye oo ku jiraan gas bensiin ku jiraan iyo waxa la helay xirigii ay ku xirnaayeen George iyo Lucy ku xirnaayeen la helay iyo gumaashkii yaraay iyo shakartoonkii lagu xirxiray guriga Charlie yaale
marka askartii waxay markaan xaqiiqo u saaratay in uu Charlie dilay oo asiga dadka maadaama asiga caawinayay waa dad waaweyn ahaayeen asiga caawinayay wax kasta soo gadayay oo u suubinayay marka gurigana markii la fiiriyay oo la baarayna albaabka wax cunf ama wax la jibiyay malaha waa albaab caadi loo furay marka waxay xaqiiqsadeen inuu ninkan Charlie oo George iyo Lucy bedilay ninkii abaadi goob loo galay cidihiisa loo tagay cidii markii waxay dhaheen Charlie ma dilaayo dadkaas aad u jeclaay aad hooyi aabo ugu dhiganay inuu dilaayo ma umaleynayni wiilkeena waxa masuubinayo almuhiim wiilkii raadis la galay waxa loo imaaday jiiraanka marka waxaa jira jiiraan kale oo ayagana ku dhagan cimaarad weyn waaye oo shugada kale ka dambeeyso oo flight-ka kale ka koreeyo ayaa jiiraanka kala degnaay loo tagay markaas waxaa la dhahay hay Charlie ma aragtay marka wuxuu dhahay Charlie waxa igu dambeysay oo dheemaro ii wacay oo ay dhahay kaale gurigaan rabaa inaan ka guro alaabtii ila rar alaabtii aan la raray wax kale oo aan ogahay maanta oo jiro malaha jiiraankii iyo dadkii dhan waxay xaqiijiyeen inuu Charlie oo yahay nin fiican oo mustaxiil inuu wax dili karo ayay xaqiijiyeen markay xaqiijiyeen ay dhaheen ninkan wax maba dili karo dadkan dad fiican ay u ahaayeen asigana wuu adeegayay askartii wili taxqiiqaadkii iyo wixii dhan ay wadeen baaritaankii ay wadeen markaas 4 beri kadib waxaa la ogaaday qeyd oo dad telefoon soo diray oo dhahay Charlie sawiradiisa dhan ayaa mantigada dhan ilaa iyo meeshay degnaayeen xaafadaha dhan ilaa xuduudda dhan meelahaas ay ku dhadhajiyeen ilaan waxa waa dil waaye dilka in si fiican loo baari lahaa qofka markuu dilo waxaa laga yaabaa wadanka ama magaaladaas inuu ka baxo marka sawiradiisa meel kasta lagu dhadhajiyay marka qof wuxuu suubiyay askartii oo soo wacay markaas wuxuu dhahay Charlie aan arkay iyo saaxiibtiisa markay imaadeen askartii baaritaan meesha dhan lagu qaaday waxay ogaadeen in 2 beri ka hor meeshan laga tagay ilaa baaritaan weyn ay ku suubiyeen waa la iska dhaafay askartii way kasoo tageen meesha 2 isbuuc kadib ayaa waxaa dhacday jariimadii oo George iyo Lucy markii la dilay 2 isbuuc kadib qof waxaa jiro oo meelaha oo xadiiqayaalka iyo meelaha coosaska ku yaalo dadka oo daawooyinka ku shubo oo waraabiyo ayaa meesha waxay ku arkeen meed isla markii askartii oo wacay markaas oo askartii wada imaadeen waxay aragtay qofkii 2 isbuuc ay raadinaysay oo dhulka xooran oo hadii la fiiriyay oo ID-giis wixiisa la fiiriyay oo Charlie Morris oo yahay waa ninkii ay raadinayeen 2 isbuuc dhan oo rasaas lagu dhuftay ama xabad lagu dhuftay oo xabadan loogu dhuftayna inta xabad loogu dhuftay hal xabana inta loogu dhuftay ninkii oo la raadinayay oo lisdhahay ninkaana dadkan dilay oo adeegay oo la dhahay askartii iyo dadkii dhana waxay ku naqatay sadme ku naqatay ama wax laga naxo ay ku naqatay ninkii ay dhahayeen asiga dilayna waxay arkeen asigoo dilan markii xaafadda la imaaday meedkii la keenay hooyadiisa iyo dadkiisa dhan way naxeen kulli markay ku wada naxeen waxay dhaheen waa kana qofka amaanta ugu shakinayeen asigana waa la dilay markaas ay weydiiyeen waxay dhaheen dad oo wax cadow moo leeyahay yani hadda ka hor dad may isdagaaleen dadkii dhan oo waxay dhaheen nin asoo wax la dagaalay ma arkin asoo cadow dadku ahna ma arkin marka dilkii askartii waxay u naqatay 2 case inay raadiyaan keeskii George iyo Lucy iyo keeskan kale oo hadda soo baxay oo Charlie Morris oo ninkii loogu tuhmayay inuu asiga dilay loo maleynayay ayaa askartii u soo baxday inuu 2 case inay raadiyaan keeskii sidee baaritaan ugu hayeen marka dilkan oo George iyo Lucy la dilay iyo dilkan oo Charlie Morris la dilay hal case miya hal qof ma dili karo mise 2 case ay kala yihiin marka askartii raaditaan ay galeen khaliga markii askartii raaditaan iyo baaritaan ay ku suubiyeen meedkii ay soo heleen oo Charlie ahay waxaa la ogaaday xabada lagu dhuftay nooca ay tahay
xabadaasna waxaa lahaan jiray George oo dadkii la dilay kamid ahaay maamadii iyo duqii la dilay guriga lagu gubay gurigaas ayuu laga lahaay ninkaas ayaa lahaay marka waxaa la ogaaday labada dilba inuu yahay hal case oo yahay oona hal qof dilay raadis lagu galay xabadii waa la waayay bistooladii qofkii markaas ku dilay dilkiya waxaa la galay raadis markaas maanta maalmaha kamid ayaa waxaa dhacday in oo waxaa imaado Charlie girlfriendiisa ama saaxiibtiisa ayaa meeshaas karta imaaday oo muddaba la waaysanaayo oo la raadinayay meel kasta laga raadinayay markay imaaday waxay tiri halahan dhan waa cabsanayay inaan wax sheegaan rabay marka qof aan markaas aan dhihi karo qofkaas dilay ma dhihi kari saas aan u cabsaday ay tiri marka hadda maadaama dilkii iyo wixii batay oo Charlie la dilay ayaan soo baxay aan rabaa inaan wax muhiim idin sheego markii askartiya waxay dhahayn noo sheeg marka xuduudini u imaanay waa idin waynay waxay tiri anaga xuduuda markasta iska tagi jirnay saaxiibo ahayn cidaan uu shaqayn jiray ninkaan wax kasta u suubin jiray nin oo dadka isdilaayo ma ahan markii nuskeen dambeysay dadkaas way noolaayeen waa soo baxnay xuduudan soo aadnay markaa xuduudi soo aadnay oo cabaan aan joognay ayaa waxaa noo imaaday ninkii ay idin sheegayo oo diriskooda ahaay oo dabaqa ka koreeyo degnaay Peter la dhahaa Peter noo imaaday islehe oo wuxuu dhahay Charlie miyaha aaday iskugu dhawaayeen saddexda jiiraan Charlie miyaha intay joog telefoon oo soo diray Charlie Peter telefoon soo diray wuxuu dhahay intay joogtaa wuxuu dhahay xuduudan joogaa meeshaas aan joogaa igu imaa markuu ugu imaaday marka ninkaan ma u sheegin dadka in la dilay ma u sheegin markaasoo wuxuu dhahay oo imaaday wuxuu dhahay la soo baxay Iraac gabadhii waxay tiri ani meesha igu dhaafiyay tiri way israaceen sida isku raaceen Peter iyo Charlie ay isku raaceen ma soo naqanin maalintii dhan ilaa iyo habeenkii sugay ana waa iska soo baxay dhahday khalaas markaas dilkii iyo wixii aan ka arkay dhan waxaan ka arkay tiri journalka askartii marka waxay heleen kiiska wax u furi doono ee heleen way soo baxeen Peterkii u tageen Peter sidoo hadalkii hore soo sheegay wuxuu dhahay aniga ninkaas oo ii imaaday hadda xasuusantiin oo maskaxdeena qisada ay ku jirto wuxuu dhahay maxaa lahaa Charlie ii imaaday soo bax alaabta ay la gurigan ka guurayo oo dhahay nafsi kalaamkii kalaamka saaxiibtiisa ee tiri markii loo imaaday waxaa la dhahay adi kalaamkaas hadalkaas aan dhahday iyo hadalkan oo Charlie saaxiibtiisa dhahday isku mid ma ahan maxaa qarinaysa sheeg markaas ninkaan wuu diiday inuu la macaamilo askarti oo wax inoo sheego diiday askartiya marka waxay arkeen ay gurigiisa joogo ayay arkeen eegi markay fiiriyeen marka waxay amar soo qaateen in guriga la baaro warqaday soo qaateen ninkaan markuu iswaalay askarta kale u tageen warqadana la siiyay guriga aan ku baarno gurigiyaa la baaray guriga markii la baarayaa waxaa la arkay boorso lacag ku jirto ayaa la arkay boorsadii lacagta ku jirtay markaasaa ninkaan waxaa la dhahay Peter lacagta ayaan kule anigaa lahoo dhahay adi waa lasoo waday ninkaan ilaa hadda wuxuu naqday ninkii maanta keliya oo loogu shakinaya dilka Charlie iyo dilka George iyo Lucy oo dilay asiga hadda loogu shakinaa marka waa lasoo waday eegiisana waa lasoo waday markii lasoo waday baaritaan labadooda lagu suubiyay ninkaan sida loo hanjabayay oo si kasta baaritaan fiican loogu helay baawurkiisa la tagay baawurkii hadii la baaray waxaa la arkay tin kamid ah tinta Charlie ayaa meesha ku jirtay oo go'day askarta markay wax baarayeen crime-ka ee baarayeen wax kasto sheygaas ugu yar xataa aad ay u baarayaan markay baareen waxay ogaadeen inuu baawurkaas oo Charlie ku jiray waa la baaray oo meesha uu geeyay baawurta geedihiisa oo lugaha way baareen wixii dhan ay baareen waxaa kusoo cadaatay ninkan inuu asaga dilkan uu geystay Charlie asiga uu dilay oo Lucy George asiga uu dilay gurigan uu ku gubay markii wixii dhan xaqiiqada lagu soo haayay ayaa ninkan wuxuu isku dayay inuu inkiro ayuu isku dayay marka gurigii oo la gubay oo dadkii lagu baabi'iyay dawladda amar waxay ku bixisay hadda in la nadiifiyo la rinjiyo waxa dhan lagu suubiyo oo sidii hore laga dhigo ayaa loogu talagalay nina loo diray ninkii sida hooshii dhan u haayay ayaa wuxuu arkaa kaarkii oo ahaay bistooladii oo George lahaay oo Charlie lagu dilay wuxuu arkay kaarkeeda ayuu helay
markuu askartii oo u imaaday wuxuu dhahay waxaan idinka ilow inaan idin sheego anaad guriga nadiifis marka ay dhahdeen aan nadiifiyo dheh aan kaarkaan aan arkay oo dheh kaarkaan bistooladaas aniga waan gatay waxaana iga gaday oo dheh Peter waa ninka kor ka degnay oo jiraankooda ahaay oo dilka hadda askarta ku xiran ayaan ka gatay oo dhahay markii loo imaaday hadii la isku fiiriyay xabadii oo Charlie lagu dhuftay iyo bistooladii ninkan oo keenay hal ayay noqotay Peter markaas oo xaqiiqada sheegay oo dhahay aniga dadkaasna gubay oo la dilay lacagtaas oo u baahnaa Charlie markuu igu ogaaday uu tagay oo dhahay aan soo wada oo isoo raacayna wuxuu arkay lacagtii oo arkay markuu igu ogaadayna asigan waan dilay sidoo ii sheegin marka dadka maxaa ku dishay markii la dhahay markaas wuxuu dhahay ani dadka waxa ku dilay lacagtaas oo u baahnaa dadkana waxay ahaayeen dadka bangiga sidaan hore idinku sheegay lacagta bangiga ma ku aamineen inay bangigooda lacag ku haystaan marka hal marka dadka u sheegatid waxa gurigaaga ka dhaco sirtiisa marka u sheegatid jiiraanka dhan ay ku og yihiin waa in lagu dili karaa waa in damac qofka ka soo gali karaa waa inuu ku xasdi karaa wax kastoo kugu suubin karaa marka dadkan dad oo waayeel iska ahaayeen way iska sheegayeen diriska dhan cimaarada dhan ee deganayeen waa lagu ogaay marka waxaa rabay oo dhahay lacagta dhan kaashka ah inaan ka dhaco marka uu imaaday oo dhahay albaabka iga fureen waa soo fadhiisanay shaahi cabaayina isla cabnay oo dhahay waxaan arkay oo dhahay boot meesha yaalaan arkay oo dhahay bootkiya wax soo qaadanaya iska dhigay oo dhahay waa soo istaagay oo dhahay bootkiya soo qaatay ninka gadaashiisa soo maray oo dhahay George madaxa ugu dhuftay wuu dhacay is dhahay markuu dhacay maamada inay qeeliso markii ritigood meesha yaala afka ugu aruuriyo oo dhahay isla markii shariid oo raadiyay shariidkii oo ku xirtay gurigii oo ku xiray wuu baxay gurigiisa kor oo aaday wuxuu soo degsaday xirigii iyo benziinki guriga lagu gubi lahay wixii dhan oo soo degsaday markoo imaaday oo dadkan si fiican haddana gacmihii lugihii oo ka xirxiray maamadana si fiican oo shariidka ugu wareejiyay oo dhag ku siiyay marka sidii aan ku dhaafay oo dhahay guriga dhan aan baaray oo dhahay lacagtii dhan wixii dhan aan soo baxsaday dahabki wixii guriga ku jiray dhan aan boorsada kusoo ritay oo dhahay waa baxay gurigayaan koray oo dhahay boorsada guriga geeyay oo dhahay wixii oo xergihii iyo shikartoonkii sharootadii wixii dhan oo soo qaatay oo dhahay gaaskii aan ku shubay waxaan ku daaray oo dhahay gurigayaan iska koray oo dhahay gurigii oo koray marka waxay usoo degtay guriga Charlie oo dhanka gadaalan ka galay oo dhahay alaabtii dhan meesha u dhigay wuxuu rabay in oo Charlie dilkan iyo dhicitaanba inuu asiga oo madaxa u saaraa rabay oo dhahay marka sheekadii way ina qaweysay Charlie wuu ila fahmi waayo oo dhahay markaas soo wacay oo arkay lacagtii oo arkayna waa ila dagaalay asigan waa waday hayana lacag ku siinayaan dhahay waxba isheegay waa soo waday meesha meedkiisa ka hesheen aan geeyay oo dhahay meeshii aan ku dilay oo dhahay marka sidii waxa isdhahay oo dhahay khalaas lacagtii wixii dhan way ku najaxday waxaan adiga iskale marka qofka dilka suubinayo qofka wax xun suubinayo maba fikiraayo in qofka gadaal wax kasta ugu imaan karo shay yar tuuga waxa waaye wax yar oo ka tagi kara qaydkaas yar askarta ku soo raaci karaan askarta CID-ga FBI-ga aad waa askar aad u adag waaye marka walaaleyga qaaliga qisadaan waxaa ka fahmi kartiin insha Allah ra'yigiina igu soo qora markasta waxa waaye waxa gurigaaga ku saabsan inaa banaanka u bixisid ma ahan ayaantan crime-kii iyo wixii dhan adduunka oo ku batay qofka hadoo jiraankaaga ama dadkaaga yani dadka banaanka ay kugu ogaadaan dadka banaanka markay sirtaada guriga ogaanayaan wax kastay kugu suubin karaan marka dadkan haday maanta ay sheegan lahayn inaysan bangiga lacag ka soo qaadanayn dilka ay waxa mu imaan lahayn walaaleyga qaaliga qisada hadaa ka hesheen comment qurux badan noogu soo qora like fara badan dhag like-ta dhiirnaan ay markasta noo tahay comment-na face ay shay noogu soo qora sida hore ugu socono subscribe-ki iyo badiya walaaleyga qaaliga aada markasta niga codsanaa garabkayga inta soo istaagtiin gabarga ayaan iska jiro ilaahay caafimaad hana wada siiyo meel kasta aan joogno intaan ka kulmayno video waxigana waxaan idin leeyahay fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu